كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله والله waxaan ku soo guday jiray duruusteeni 30 qisatan bilisaan nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. soddon qiso oo ku sugnaaday carabka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa soo keen dambeysay walaalayaal xalqadeeni 16aad nimankana insha Allah waxaanu qaadanaynaa maantana xalqadeeni 17aad waxay ku saabsan tahay xalqadani عظمة تحريم قتل الإنسان نفسه وحويان ماركتي وينانت ay leedahay qofku waxa weeye maaragtay iyo khatarta waxa weeye ay leedahay inuu waxa weeye naftiisa dilo oo waxa weeye uu gooyo nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiidka waxa weeye an jundub al-bajali radiyallahu ta'ala an qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam jundub waxa uu leeyahay qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay waxa uu yiri inna rajulan oo mimman kana qablakum umadidin ka horeeyay kamida kharajad waxa ka soo baxday bihi isaga قرحة وحوية نور باكسو بحي فلما آذتهم مركي أي دبتي نبركي كواركيسي حنونكيسي كوباتي انتزع وحكرا صوبح وكسو سيبتي سهما لابو كسو سيبتي من كنانته وحوية بورسديسي فنكاها وحوية ماشي أيا وحوية وكتشح وكدلولي فلم يرقى وحويان ما جوكسنين الدم ديغي حتى مات الى يوم دنتي ديغي با جوكسن واي قال ربكم دبتنا ربيين waxa uu yiri qad harlamtu alayhi aljanna waxa weey ninka waxaan ka xaraam yeelay waxa weey jannadii ayaan xaraamta ka yeelay inuu galo xadiidkuna waxa weey waa xadiis waxa weey saxiixa oo muttafaqun alayhi weeyaan waxaan walaalayaal ka faa'iideysanaynaa xadiidka waxa weey iyo maaragtay qisada waxaan baarsan yahay arinta koobaad ee ka faa'iideysanaynaa waxa weey كان انتزاع السهم وحويه وحوها ليبكا وحويه وسيبتي لكي يقتل نفسه انه نفسه وحويه دلو ولم يكن يداويها وحويه مسيبنين انه نفسه وحويه دوي ارنت ولا لا صدخ لباد انه كفايديسنا وحويه قتل نفسه حرمه الله عليه الجنة وحويه سببته او نفسه او غويي ايا الهي سبحانه وتعالى جندي uu kaga xaraam yeelay oo uu kaga xaaraantinimay inuu galo arinta waxa weeye saddexaad walaalayaal inuu ka faa'iideysanna qisada iyo xadiidku waxaan baarsan yahay waxa weeyaan tahriimul jannati ala qatil nafsihi ilaahay inuu xaraam ka yeelay qofka inuu naftiisa dilo inuu jannada galo qofkii naftiisa gooyaa inuu jannada galo ilaahay waa ka xaraam yeelay maantana waxa weeye ummad badan baad arkaysaa oo naftoodii waxa weeye gooynaya sababo kala duwan iyagoo waxa weeye maartay ka cabanaya قد يكون وحنقون كرا لأنه استحل قتل نفسه وحوي إنه حلال يستين نفتيسين وحوي يدله كما يستحل الخمر سيدا وحوي قفك خمر حلال صدا يكفر بالله إلهي وحوي وقالوا به هذو خمر حلال كتل مامين وحلال يهي ويخلد بالنار نارتنا وحوي وكما ركت واريو وأنه كافرا في الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره أما وحوي بدي سوق قاله ayaa waxa weeye uu dhintay isagoo macaasi badan galay iyo gaalnimadiisii si waxa weeye loogu sii ciqaabka waxa weeye aakhiradu uu mid weyn waxa weeye ugu noqdo waqad yakunu mu'minan wuxuu noqon karaa qof waxa weeye mu'mina وحرم الله عليه الجنة إلى هنا جنة وكحرام عندما قتل نفسه مركو نفتي سدلي ابتداء ولكن بالاستنجاد إخوانه يسألون الله تعالى كما في الحديث يقول ربنا إخواننا وحويا dadka maaragtay nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay dadka waxa weeye ahlul naarka qayb kamida ayaa dadka ahlul jannaha ah ayaa waxay oranayaan rabbana dadka macaasida la yimee waxa weeye maaragtay marka hore dadka wanaagsan ahaa muuminiinta ahaa ilaahay rumeeyay laakiin acmaasha xun amalkoodii xumaa uu farabatay ayaa waxa weeye markay naarta galaan kuwii jannada galay ba arkay dabeetana ilaahay bay dacwoonayaan waxay oranayaan rabbana rabbiga iyo ikhwaanuna nimankaasi walaaladayada ay dadkaasi ahaayeen kaanu yusalluuna macana wayna la tukanayeen wayasuumuuna macana wayna la soomayeen wayacmaluuna macana waxa weeye wayna la amal falayeen fayaqulu allah ta'ala ilaahay ba oranaya idhabu war orda oo taga malaa'iktii buu oranaya ilaahay ku oranaya yagi فمن وجدتم قفكي أصوه هشام في قلبه سوكو سغيهي مثقال دينار وحلاق من إيمانا فأخرجوه نارتك صار إلى أيه وحوية وسوق قاري
faman wajadtum fii qalbihi mithqaala daratin kii waxa weeye qalbigiisa laga helo waxa weeye dhuudhicasa wax leegoo iimaana fa akhrijuuhu naarta ka soo saaro fa yukhrajuuna man carafuu waxay ka soo saarayaan naarta in alla intii ay garteen oo waxa weeye ay garanayaan. waxaynu kale walaalayaal ka faa'iidaysanaynaa arrinta afraad idaa kaana taxriimu qatlu nafsi muxaraman haddii uu yahay waxa weeye qofka naftiisa inuu gooyo in laga xaaraam yeelay fa ina qatla alghayri ashaddu xurmatan bidariiqi alawlaa waxa weeye qofka naf kale inuu gooyaana waa kasii awlaysan tahay oo waxa weeye ilaahay waa xarimay qofka muslimka naftiisa waxa weeye xaqdarro in waxa weeye lagu gooyo. arrinta shanaad walaalayaal waxa weeyaan الوقوف عند حدود الله إلهي سبحانه وتعالى قفك حدود ديسا إنه وحوية كوغاد أو آنو دافن فالأنفس ملك لله وحوية نفط وملك إلهي سبحانه وتعالى ولي وليست لنا إنه وحوية ملهن لذا لا يجوز التعدي عليها منبنا أنا نفطين لقحد قدبه سيدا إلهي سبحانه وتعالى ولي تلك حدود الله تاسوا حدود إلهي دين دقي فلا تعتدوها كقدبنا ومن يتعد حدود الله قفك كقدب إلهي سبحانه وتعالى حدود ديسة فأولئك هم الظالمون كواس وحوي يقع أيها الظالمين ونفتود الدلمي أرنت اللي حدا ولا ليال إنه كفى إذا سنة قصة حديثك وحويان تحريم تعاضي الأسباب المفضية إلى قتل النفس إن حرام تهي سبب كسته وقفك أمره إنه وحوي نفقه يا من نفتي سوقيه وحنو كلا ولا ليال أرنت تضبط كفى إذا سنة قصة حديثك وحويان فضل الصبر وحوي فضل ديراتك يوينانت إلى الصبر كقفك وصبره وعدم التضجر من الآلام يقفك وحوي إن أنو لبسنين وحوي مارك كاررك يحنونك قبانية حتى لا يقود لما هو أعظم منه سي وحوي يقفك دب انت كوين أنو قدعين سيدا وحوي نكابا كل عضي وحوي نفتي سيو قوي مركنا مركز كصوب حي وحوي نارنا أصابتين وحوي قال شندين لقى حرام يلو إلهي سبحانه وتعالى وحولي ولن نبلونكم إذن امتحان بشيء كم امتحان من الخوف وحوي عبسية والجوع قاتشا ونقص من الأموال حولها إذن كيراد والأنفس ينفوها حنون قدعان والثمرات يبيرها وحوي إذن كيراد وبشر الصابرين إلهي وحوي محمد كليه وحدو بشارة سكوه وحوي الصبر جعلنا الله وإياكم من الصابرين الشاكرين وصلى